Assalaamu calaykum. Maanta waxaan jeclaystay inaan idiin soo gudbiyo filim cabsi badan oo la soo saaray 2003 magaciisuna yahay Wrong Town. Balse inteenan u gudagalin sheekada filimka, haddii ay tahay markii kugu horeysay aad na soo booqato, fadlan nagu soo biir subscribe na saar kanaalka, gambaleelkana furo si aad u rukumato ay kuu soo gaadhaan muuqaalada cusubi. Haddii aad hore noola joogtayna ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto. Ku soo dhawaada muuqaalkeena kuna raaxaysta sheekada filimka. filimku wuxuu ku bilaabmayaa lamaane buur sare u fuulaya. Qofka ugu horeeya ee gaadhaya meesha ugu sareysana wuxuu noqonayaa ninka. Gabadhuna iyadoo caawimo weydiisanaysa waxa si kadisa dhulka ugu dhacaya ninkii, waxaana ku soo daadanaya dhiiggiisa. Isla waqtigaa waxa buurta laga soo tuurayaa saaxiibkeed. Gabadhiina waxa sare loo jiidanayaa xadhigeeda, balse waxa iska jaraysaa xadhigii waxayna ku soo dhacaysaa dhulka. Aad ayay u argagaxaysaa markay aragtay meydka saaxiibkeed. Waxayna ogaatay in la daba socdo waxayna u carartay dhanka gaadhiga, laakiin waxa lugta u galay taar waxaana dib u jiitay wixii eryanayay. ninkan waxa lagu magacaabaa Chris. Wuxuu ku xaniban yahay meel wada ah. Markii uu ka soo degay baabuurkii wuxuu darawal kala weydiiyay waxa meesha ka socda. Darawalkiina wuxuu ugu jawaabay in kiimika ku soo caariday wadada, inta la nadiifinayna ay qaadan karto dhowr saacadood. Laakiin Chris wuxuu u sheegay ninkii inuu aad u degdegsan yahay. Darawalkiina markii uu isku dayay inuu tala siiyo wuxuu ku yidhi waad mahadsantahay, wuxuuna dib ugu noqday gaadhiga. Wuxuu dib u soo raacay isla wadadii uu ka yimi isagoo telefoon ku hadlaya qofna uu sheegay inuu ka habsaami doono interview-ga. Waxaana ka go'ay khadkii signalka oo daciif awgii. Wuxuu yimi kaalin shidaal si uu uga dirsado telefoon, laakiin ninkii wuxuu u sheegay inaanu telefoonkiisu shaqaynayn. Intaa kadib wuxuu arkay maab ay ku sawiran tahay wada kale oo aan ahayn wadada xidhan. Wuxuuna ninkii u sheegay inuu naftiisa ka taxadaro, laakiin ninkii wuxuu ugu jawaabay inay tahay inuu isagu naftiisa ka taxadaro. Chrisna wuxuu soo aaday wada ay ku qoran tahay Beer Mountain Road, wuxuuna jidka ku sii dhaafay deero dhimatay. Isagoo sii eegayay wuxuu shilkadiisa ku galay wadada bartankeeda. Waxaynu aragnaa koox saaxiib ah oo u sii ordaya dhankiisa. Lamaanaha ugu horeeya waxa lagu kala magacaabaa Scott iyo Carly, waxayna ku canaananayaan taxadar la'aantiisa. Lamaanahan kale oo kala ah Francine iyo Ethan ayaa iyaguna ku canaananaya sida xawliga ah ee uu waday gaadhiga. Wuxuuna u sheegay inuu aad uga xun yahay oo uu mashquulsanaa markii uu shilku dhacayay. Intaa kadib waxay ogaadeen shilku inaanu ahayn khaladkooda ee uu ahaa dabil loo dhigay. Gabadhan lagu magacaabo Jessie ayaa ogaatay in taar loogu xidhay laba geed, taasoo micnaheedu tahay in ciidisi ula kaca u samaysay falkan. Intaa waxay u raacisay inay u baahan yihiin telefoon oo ay aadaan dhanka kaalinta. Laakiin Chris ayaa u sheegay inuu soo maray kaalinta oo aanu oolin wax telefooni. waxayna go'aansadeen inay lugeeyaan si ay u helaan caawimo. Jessie ayaa Chris weydiisay magaciisa iyo inuu dhaawac soo gaadhay. Wuxuuna u sheegay magaciisa iyo inuu fiican yahay. Intaa kadib waxay ku tuurtay shandad iyadoo u sheegtay inuu noqon doono xamaaligeeda. Afartoodiiba way soo raaceen. Francis iyo Ethan waxay ku hareen baabuurtii. Scott iyo Carlyna waxay ka wada hadlayaan arooskooda. Waxay si kadisa u arkeen dab ka shidan meel aan ka fogeyn. Waxayna u dhawaaqeen xagga dabka si ay u hubiyaan in ciidi joogto, laakiin may helin wax jawaab ah. Waxayna iska sii wateen socodkooda. Dhinaca kale Ethan oo baadhaya alaabtii gaadhiga wuxuu maqlay cod ka soo baxaya dhinaca kaynta. Wax yar kadib saaxiibadii Francine ayaa aragtay kabihiisii oo yaala dhulka. Sidoo kale waxay aragtay mid ka mid ah dhagihiisii oo go'an, iyadoo argagaxsan isla markaana hoosta ka xalaysa tallaabada wax xagga dambe kaga yimi oo dilaynin. Dhinaca kale kooxdii waxay socdaanba waxay soo gaadheen guri. Jessie way cabsatay markay aragtay baabuur kala duwan oo duuga. Markii ay gudaha soo galeen waxay arkeen inuu gurigu wasakhaysan yahay heer laga yaqiiqsoodo. Waxayna ka dhaxeleen alaab badan oo ay ka mid yihiin furayaal gaadhi, miraayado iyo weliba alaab tiro badan. Chris wuxuu furay talaagada wuxuuna arkay qaybo ka mid ah jidhka bini'aadamka oo ku kaydsan dhalooyin. Carlyna waxay aragtay gacan bini'aadan oo dul sabaynaysa biyaha qubayska. Sidoo kale Jessie ayaa heshay taar la mid ah taarkii loo dhigay gaadhigooda. Waxayna xaqiiqsadeen inay soo galeen guri khaldan. Iyagoo isku dayay inay ka baxaan guriga waxay arkeen gaadhi xamuula. Waxayna mar kale isku dayeen inay ka baxaan albaabka dambe laakiin umay suurtagelin. Waxayna ku qasbanaadeen inay ku dhex dhuuntaan guriga. Gurigiina waxa soo galay nin sita meydkii Francine. Jessie iyo Chrisna waxay ku hoos jiraan miis. ninkii waxa ka soo dhacday rasaas waxayna hoos gashay miiskii ay ku hoos jireen. Wuxuuna gacantiisa ku baadhay rasaastii isagoo ku sigtay inuu taabto Chris. Carlyna waxay dalool ka soo eegaysaa mid ka mid ah nimankii oo googoynaya jidhkii Francine. dhowr saacadood kadib nimankii way seexdeen. Kooxdiina waxay bilaabeen inay si dhuumasho uga baxaan guriga. Markii ay fureen albaabkii wuxuu sameeyay dhawaq. Chris ayaa isku dayay inuu joojiyo dhawaqa albaabka ka soo baxaya. Gacmihiisiina waxay bilaabeen inay dhiigaan. Markii ay banaanka u baxeen ayuu gadaal soo eegay wuxuuna arkay mid ka mid ah gacan ku dhiglayaashii oo soo eegaya. Intaa kadib waxay u yaaceen dhanka buurta. Nimankiina waxay ka soo baxeen gurigii waxayna kaxaysteen gaadhigoodii ugaadhsiga. Markii ay ka soo degeen buurta waxay arkeen gawaadhi tiro badan oo ay ku xidhan yihiin dhiig. Kadibna waxay maqleen guuxa gaadhigii gacan ku dhiglayaasha. Waxayna ku dhuunteen baabuurtii. Saddexdii gacan ku dhiglana waxay ka soo degeen gaadhigii. Scott ayaa soo jeediyay iyaga mid ka mid ah inuu ka jeediyo gacan ku dhiglayaasha si ay ula baxsadaan baabuurkooda. Isla markiiba Chris ayaa ismiidaamiyay si uu uga jeediyo laakiin nasiib darro waxay ka toogteen lugta. Intaa kadib
kadib Scott ayaa isna u cararay jihada kale gacan ku dhiiglayaashiina waxay ku mashquuleen Scott labadii gabdhoodna waxay caawinayaan Chris si ay u soo gaadhaan baabuurka markii ay gaadhigii fureen waxa kaga soo dhacay meydkii Ethan si kastaba ahaatee waxay ka haysteen gaadhigii iyagoo isku dayay inaanay ka tagin Scott laakiin nasiib daro gacan ku dhiiglayaashii ayaa dhabarka kaga dhuftay leeb saddexdii soo hadhayna waxay isku dayeen inay ka baxsadaan goobta Carly aad ayay u niyad jabsan tahay laakiin Chris ayaa isku dayay inuu qaboojiyo niyadda intaa kadib waxay ku goodoomeen geed weyn oo wadada ku yaala dibna uma laaban karaan maadaama oo ay gaadhiga kaga dhigtay dhoobo baabuurkii ayay ka soo degeen waxayna ku qasbanaadeen inay lugeeyaan Chelsea waxay Carly niyadda ugu dhisaysaa inay booliska wici doonaan isla markaana la ciqaabi doono dambiilayaasha Chris oo ul ku tukubaya si ay uga caawiso socodka waxa la kacay dabin laakiin nasiib wanaag may noqon lugtiisa waanu ka badbaaday waxayna go'aansadeen inay yara nastaan Carly waxay aragtay dhismo u dhow oo tower ah waxayna go'aansadeen dhammaantood inay fuulaan towerkii markii ay fuuleenna waxay arkeen inaanay u dhoweyn wadooyin iyo guryo toonna Chelsea ayaa towerkii ka dhaxashay gargaarka degdega waxayna dhayday lugtii dhaawac ahayd ee Chris Carly sidoo kale waxay heshay idaacad duuga waxayna isku dayeen inay cid uun kala xiriiraan gacan ku dhiiglayaashiina iyagoo hoos maraya towerka waxay maqleen codka idaacadda waxayna bilaabeen inay soo koraan towerka kooxdiina waxay idaacaddii ka qabtay qof waxayna u sheegeen inay halis ku jiraan isla markaana aanay garanayn meesha ay ku sugan yihiin Chelsea iyo Chrisna waxay xidheen albaabka markii ay arkeen gacan ku dhiiglayaashii oo isku dayay inay soo galaan wax yar kadib waxay arkeen qiiq ka soo baxaya hoostooda waxay jabiyeen daaqadda waxayna mid uga daateen towerkii nasiib wanaag waxay ku dul dhaceen geedo waaweyn iyagoo rajeynaya inaanay arkin gacan ku dhiiglayaashu waxay si tartiib uga gudbeen geedihii Carly oo gariiraysa cabsida haysa awgeed waxa si lama filaana gudin ugu dhuftay mid ka mid ah gacan ku dhiiglayaashii Chelsea iyo Chris hadda waa labada kaliya ee ka soo hadhay kooxdii waxayna ku dul soconayaan geedo dhaadheer iyagoo qorsheynaya inay gacan ku dhiiglaha ku dhuftaan laan marka uu soo dhawaado markii uu dalaagii u soo dhawaaday Chelsea Chris wuxuu sii daayay laantii waxayna ku dhacday gacan ku dhiiglihii taasoo sababtay inuu dhulka ku dhaco labadii kale ee gacan ku dhiigle waxay arkeen saaxiibkood in laga soo tuuray geedka Chelsea iyo Chrisna waxay ku dhunteen meel biyo dhaca halka ay gacan ku dhiiglayaashii ka raadinayaan kaynta dhexdeeda subaxnimadii markii ay soo kaceen way farxeen markii ay arkeen wadadii saxda ahayd si lama filaana waxa agtooda loogu dhuftay gudin waxaana laga soo weeraray labada jihaba Chris wuxuu hoos ugu dhacay kaynta Chelsea waxay gacanta u gashay gacan ku dhiiglayaashii Chris wuxuu arkay gaadhi boolis waanu hor istaagay ninkii booliska ahna wuxuu weydiiyay inuu ka mid yahay dadkii ka soo wacayay idaacadda laakiin Chris ayaa ka dhex galay hadalkii oo u sheegay inay dhammaan dadkii dhinteen intaa kadib ninkii booliska ahaa waxa lagu dhuftay fallaadh Chrisna si degdeg ah ayuu u galay gaadhiga si uu u kaxeeyo laakiin nasiib daro wuxuu waayay furihii wuxuuna hoos galay gaadhiga gacan ku dhiiglihii ayaa soo qaaday furihii gaadhiga wuxuuna hubiyay gaadhiga hareerihiisa laakiin nasiib wanaag Chris wuxuu ku dhuuntay kaynta gacan ku dhiiglihiina wuxuu meydka askarigii saaray gaadhiga Chrisna wuxuu isla markiiba hoos galay gaadhiga waanu kaxeeyay dhinaca kale Chelsea wali way nooshahay waxayna ku xirxiran tahay sariir labadii gacan ku dhiigle ee kale ayaa soo galay guriga waxayna keeneen meydkii booliska isla waqtiga Chris oo maqlayay codka Chelsea ayaa dab qabadsiiyay albaabka wuxuuna gaadhigii soo dhexgeliyay gurigii isagoo dilay mid ka mid ah gacan ku dhiiglayaashii wuxuuna la dagaalamay kii kale naftiisuna waxay gashay halis laakiin Chelsea ayaa soo fakatay waxayna gacan ku dhiiglihii ku dhufatay fallaadh dilaagii saddexaad ayaa yimi laakiin isagana waxa dhaawacay Chris wuxuuna soo qaatay qorigii iyadoo wali saddexdii gacan ku dhiigle ay nool yihiin isagoo Chelsea u sheegay inay hal rasaas ku hadhay qoriga waxa qarxay gurigii intaa kadib waxay soo kaxaysteen gaadhigii gacan ku dhiiglayaasha markii uu soo dhawaadeen kaalintii ninkii ayaa ka xidhay albaabada isagoo u malaynaya inay yihiin gacan ku dhiiglayaashii waxaana la yaab ku noqotay inay wataan dad kale gaadhigoodii Chris wuxuu qaatay maabkii ku dhajisnaa gidaarka wuxuuna ku laabtay gaadhigii habeennimadii nin boolisa ayaa yimi gurigii isagoo baadhayana waxa xagga dambe kaga yimi mid ka mid ah gacan ku dhiiglayaashii oo weli nool filimkuna wuxuu ku dhammaanayaa halkan waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka